waxaa dhowaanta lagu qabtay magaalada Amsterdam ee dalka Netherland kulan ay ujeedadiisu tahay sidii bulshada Soomaalida meel kasta ay joogaanba guda iyo dibadba loogu wargelin lahaa fursadaha maalgashiga mustaqbalka ee dalka hooyo gaar ahaan dhinacyada wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga iyo dhammaan guud ahaanba mashaariicda la xiriira wax soo saarka cunnada. kulankan oo Amsterdam ka dhacay oo ay soo qabanqaabiyeen hay'adaha ay ka mid yihiin IFAD, hay'adda qaramada midoobay ee u qaabilsan la dagaalanka cunno yarida, Bid Network, Color Consultancy iyo ururka Samfao. Barnaamijkan ayaa loogu talagalay in lagu taageero dadka ka ganacsada ama raba kuna hawlan wax soo saarka cunnada nooc walba. Waxa barnaamijkan sida ay sheegeen mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan uu ahmiyad weyn u leeyahay dadka Soomaalida ah ee raba in ay maalgashi ku sameeyaan dalkooda hooyo gaar ahaan waxay si weyn diiradda u saarayaan kaalinta qurbajooga inkastoo aan la ilaabayn kuwa ku nool dalalka Somaliland iyo Soomaaliyaba. shirkan oo ay ka soo qayb galeen hay'ado iyo ganacsato Soomaaliyeed oo degan dalka Netherland kadib hadallo furitaan ah oo uu halkaas ka jeediyey mas'uul ka tirsan ururka Samfao Muuse Xirsi. waxaa hadalka qaatay Ismaaciil Cawl oo si weyn goobta ugu soo bandhigay ahmiyadda mashruuca wax soo saarka cunnada ee magaciisa loo soo gaabiyo Somali Agri Food. waxaanu si weyn ugu nuuxnuuxsaday fursadaha maanta hor yaalla dadka Soomaalida ah ee ku nool deegaanada ay Soomaalidu degan yihiin gaar ahaan dalalka Somaliland iyo Soomaaliya. Ismaaciil Cawl ayaa sidoo kale sheegay in dhulka iyo deegaanada ay Soomaalidu ay yihiin meelaha mashaariicdan laga fulin doono ee loo baahan yahay in mashaariicdan iyagana la geeyo sida awgeedna laga faa'iideysto baaqa hay'adahan maalgashiga ku baaqaya. maanta halka waxay nala jooga organization oo Holland ka jira oo la yiraahdo Bid Network sida aad ogeysiiska ku aragteen waa organization raba inay mashruuc oo ku saabsan xagga cuntada qof kasta oo mataqaanay Soomaaliya wax qabsanaya underneemer inay wax la qabtaan laakiin waa inay ku saabsan tahay dhinaca cuntada kulli iyaga inoo sheegaya waxaa markaa iyaga kala shaqeynaya oo ka caawinaya hay'adda kale oo la yiraahdo Color Consultancy oo Ismaaciil uu ka keenay ayagana marka warka u gudbin doonaa dadka markii nala jooga maanta oo halkan idin fadhiya oo macluumaadka aad ka helaysaan waxaa كم ذا؟ أنا مريم في موصل. يا لورا سميث. على وضع قبله. هذا جدا. إسماعيل عويل أو كولر كونسلتنسي. وكتيرسين هاي. وأنا سومالي وتدالي ورنتي منطقة هاي ميل بدن وطن كسر شقي حياة تقانين عنك ووطن كسر نيدلان وكيل كا ووطن حقق قبلتها. oo la yiraahdo Novib ayuu hadda ka shaqeeyaa muddadeena ka shaqeynayay markii horena waa dadka ku mashquulsanaa sidii mujtamaca Soomaaliyeed ee dalkan degan wax loogu qaban lahaa waxaan jecelnahay marka in si fiican loo dhageysto oo fariinta ay noo hayaan laga faa'iideysto si fursadaas iyo fursado kale oo laga yaabaa inay mataqaanay arrintaas sii dhiirigeliyaan haddii la rabo inaan ka faa'iideysanayno inaynu uga faa'iideysano. Ik ben Annemarie van Mossel. Ik werk bij Bid Network Foundation momenteel als senior advisor. Ik ben projectcoördinator van het programma waar we vandaag meer over vertellen. Ik werk verder heel veel met ondernemers, proberen het businessplan voor te bereiden voor financiering, dus voor investeerders. Dus ja, dat is heel kort gezegd wat ik doe. Ik heb niet in het buitenland gewoon, maar wel redelijk veel met andere landen gewerkt, onder andere Palestijnse gebieden. Filipijnen, Jordanië, Kosovo en Somalië is echt helemaal nieuw voor mij. Ja. Hoi, ik ben Laura Smees. Ik werk ook bij Bid Network Foundation. En mijn rol is investor matchmaker, dus ik zit meer aan de investeerderskant. Samen met mijn collega Marijn, die er vandaag helaas niet is omdat hij ziek is. Ik heb wel een tijdje in Tanzania gewoond. Dus ik praat Swahili, maar nog niet Somali. برنامج والبا waxa loo eegaya si gooniya way midna mid ah qof raba inuu shirkad kalluumaysiga sameeyo iyo qof raba inuu muxuu ahaayay beer aanu garanay dhamaanteen oo lean beer leena ama beerta mandha darmaadu loo geeyay tanada ka yar fududahay
waayo inagu khibrad ma lihi haddii la waxaa kalluumaysiga haddii la adoo kale waxaan rabaa inaan tamaandhada aan tamaandho qasaac ka samayno oo qofna kale leeyahay waxaan rabaa beer tamaandho inaan sameeyo dee waxaa la eegayaa muhiimadda in la siinayo qofkan tamaandho qasaaca ah waayo taasaa ah mid iminka ilaa xad loogu baahan yahay waayo waxaanu caawinaa wadamada Turkiga iyo Talyaaniga iyo Philippine oo laga keeno tamaandho qasaaca waanu u shaqaynaa dadkooda sababtoo marka kulba waxa loo eegay xitaa khibradii adoo tamaandhada garanay si loo sameeyay dad baahidii taalay ee ahayd tamaandho qasaaca ayaa run ahaantii marka la eegaya inay tahay mid ka haboon marka waxay la badan baa wala jira oo lagu eegayo lama soo koobi karo lama karo qodobka la qofka du shiradahan yaryar buuxiyay iisiga rumaantu wuxuu noqonayaa inuu soo galo mana ahana barnaamijkan laga dhigo mid aad u adag oo shuruud badan lagu xirayo waayo waxa gaba qof walba oo fikrad ridiisa raba hooyo xitaa lacag yar hayso oo habad inta lacag badan yar dhigtay rabtay inay meel weeyda geliso oo si ay joogto arigeedii iyo maxaloodeedii taa xitaa rumaantii chance ay kaga faa'iideysto waan barnaamijka la qalasiyo marka alxamdulillaah rabbil caalamiin chance kale waxa weeyaan oo la rabaa in dadka fikradda wanaagsan qaba ee raba xagga cuntada ama wax soo saarka kalluumaysiga waa ahaato ama waxa wixii wax soo saarka cuntada la qoseeyo sharci sunnada soo dara soo ku aragteen dadkii raba inay shirkad ka bilaabaan in la rabo in la garab qabto wax lala qoro wax la hagaajiyo lacagta la hay'addu yarta wala 700 kun laakiin hadii la eego 700 kun oo dunida dhan loo qaybiyo hala eego ilaa 5 barnaamij hadii laga caawin karayo waxaan u maleynayaa reehulen in la marka xaq u leeyahay maadaama kubada xaga ka bilaabato qofka lacagta gashanaya halkan iyo qofka hadda shaqo xagga raba in la isku xiro labada qof kaliya tuu noqon karaya laakiin waa inaan noqoto wax macquul ah marka la eego guddi baa iman doonta insha Allah kulli isku day doonayna wada guddi ka madax banaan awlahan ku jiraan dhan way wada waxaan nahay dad daciif waxa laga yaabaa qof kastaba inuu jeclaan lahaa hebel meesha wax ku qabsado oo qamo ku badiyo marka guddi hadii la heeraa kulli tan ka naga madax banaan ayaa eegi doonta insha Allah laakiin fikirkii wanaagsan ay siibinay anagu taawar ku turjumo oo sheegay sadii sheegayba waa halkan iyo deegaanada ay Soomaaliya ka yimaadeen taasna waxaan rabnaa inaan dhinaca xitaa dadka kala hadalno insha Allah bisha dambe waxaan tagi doonaa Soomaaliland anagu marka August September-na barnaamijka oo Hargeysa aan ka qaban doono kulan ku xigana waxa uu qaban doonaa insha Allah hadii Ilaahay raado boosaaso Chinese-ka hadii dadku Chinese-kan ay haystaan hadii ka faa'iideysan lahaayeen oo ay wax beeran lahaayeen may dhacdeen in dad badan walaalahooda ku saxdan gaajo taas waa mid cad weeyaan taasana keentay in UN tiraahdo waxaan rabnaa bal inaan qolo joog iyagana macin ka raadsano waayo maadaama ay ilaa 2 bilyan diraan waxa laga yaabaa waliba dhinaca marka la eegayo lacagaha xawaalada la diray ee loogi rahantaasina waxaan u maleynayaa inay taageero noqonayso maadaama ay noqoto amni iyo wax kale waxa in lacagta la geliyo taas ayaa keentay inay qolo joog ay rabaan inay wax soo saar ka shaqeystaan maanta ma aha oo kaliya tin leeyahay waxaan qabanaynaa fikirkiina aad haysaa dadeen barnaamijka warsaas ku wanaagsan ma taa lagu daro waa mid aan runtii qaadanayno waayo uma malaynayay intaas qof isku yimid barnaamijka 5 qof ama 6 qof soo qoranay soo hagaajiyay inay kuma sax badan marka wixii macquul ah xitaa la timaadaan runaantii waa lagu darsanaya insha Allah hadii la helo barnaamijka anagu 3 sano wadana waxa laga yaabaa 3 sano oo kale qof haduu raaco kale anigu waxaan u baahanahay 100 kun laakiin waxaan haystaa oo kale 50 kun kontonka kun ba kala lahaa bal runaantii 3 sano marka loo qaybiyo ama 2 sano loo qaybiyo bal adigu marka hore si bilow weeyay barnaamijkiisa aan tustin barnaamijkii shaqeynaya qofkaas hadii ay macquul noqoto ma had qofkeena dumiyo lacagtaas ay gashaa dhigtay adigu qaado wixii dhibaato oo dhan laakiin se barnaamijyada qaar ayaa run ahaantii u baahan in qofku qaato maxaa la yiraahdaa xaqiisa dadka marka waxa weeyaan dadka fikirka Kenya dadkaas oo dhigay taa noqon karo qof halkana laakiin qof halkaas ka wanaagsan qof dad gelinaysa xitaa family ah hadee in soo deeyo jiraan ay qof kale la hadalna ay siraan wanaagsan qof family ah la qabis in la soo keen xiro adigu qofka waa dukeeni ka taxan qofkaas jira fikirkaas jira ana waxaan rabaa inaan caawiyo website kale soo gelinay fikradaha oo dhan marka waran kara warta saawa muxuu ahaayay laga yaabaa inay tahay mid khibrad inaan ka caawiyo marka fikirka caawinaysid ama adabsiga lacagta gashitay waxyaabo badan siyaabo badan ku iman karaya adigoo qof kale ka helay iyo adigoo maantii wax soo saarka beeruhu aadamaha waa udub dhaxaadka nolosha
mashruuca Somali Agri-Food ayaa ka mid ah dadaalka adduunka loogu jiro sidii loo maalgelin lahaa horumarka kobcinta iyo wax soo saarka beeraha. sidoo kale dadkii ka soo qayb galay barnaamijkan ayaa ugu dambeyntii fursad u helay in ay su'aalo weydiiyaan mas'uuliyiinta hay'adaha kala duwan ee Bid Network, Anna Marie Mosel iyo Laura Smith, iyo ugu dambeyntii Ismaaciil Cawl oo ka tirsan Color Consultancy. barnaamijkan wuxuu ku saabsan sidii qurba joogta loogu soo bandhigi lahaa inuu jiro fursad maalgashi, fursadaasoo ay run ahaantii ka dhigtay mid macquul ah, mid ay maalgelisay hay'adda IFAD la yiraahdo ee xagga cuntada u qaabilsan jamciyadda Qur'aanka ka dhaxaysa. waxaa kale taagan laba dumar oo runtii iyaguna ka mid ah barnaamijka ururka lacagtan ay siisay hay'addu u shaqeeya. anuna waxaan ka mid ahay kalkaaliye iyaga caawiya. waxaan la joogaa kala Muuse oo naga caawinaya maanta bulshada Amsterdam iyo agaarkeeda iyo walaalahayna kala degan dalkan Holland sidii loogu soo bandhigi lahaa fursadaha jirta ee ay maalgashi samayn karayaan, kaasoo ku soo loogu talagalay xagga wax soo saarka cuntada, kalluumaysiga. qof kasta oo run ahaantii hay fikir wanaagsan oo macquul ah oo walibana awoodi kara inuu lacagta laga rabo barnaamijka kala barkeed uu bixin karayo. barnaamijkaas oo run ahaantii hadhow toolana noqonaya mid ay eegi doonaan tayadiisa iyo inuu macquul yahay la maalgeliyo dad khibrad u leh oo ka madax bannaan shaqaalaha ama dadka imika caawinaya ee u adeegaya sidii barnaamijyadaasi ay noqon lahaayeen kuwa la soo xareeyo oo laga shaqeeyo. maamul dadku inay saa ugu haraadanaayeen barnaamijyadan oo kale runtii haddii la eego wax lagu farxo. markaan xaggan nimidna waxaan walaalay Soomaaliya weydiinay fikirkiisa u arkaan. Muuse oo si wanaagsan loo shaqeeyay, Muuse Xirsi wuxuu noo sheegay barnaamijkan inuu yahay mid macquul ah noqonay mid run ahaantii dadkuna ay xiisaynayaan, maadaama imika dunida la og yahay dadka ugu dhibaatada badan inay yihiin dadka kalluumaysatada iyo beeraleyda, weliba oo aan inagu run ahaantii aynaan u turin waxna badan aanan u qaban. iyagoo weliba waxa jir la yiraahdo kala hadii la eego reer miyiga waxay laf dhabartii dhaqaalaha dadka Soomaalida aynaan run ahaantii ka warhaynin oo baar haday dhacaan ay yihiin dadka hadii jeer ay haltii la taabto marka ay dhibaato taabato. sababtaas aan u aragnaa in iyagu ay yihiin kuwa mudnaanta leh, maadaama ay yihiin mustaqbalkii iyo ama xagga dhaqaalaha kuwii horumarkeena gacanta ku hayay. kaalinta qurba joog markaa maxay noqonaysaa dadka halkan Soomaalida ah ee degan kaalintooda iyadu maxay tahay? kaalintooda laba noqon karaysaa. waxay noqon karaysaa in uu walaalkii ama walaashii ama family ama asxaabtii ama deegaan ka soo jeedo qof uu arko inuu macquul tahay inuu caawiyo oo fikir la yimid, fikirkaasoo ah fikir dabaqaya wax soo saarka cuntada iyo kalluumaysiga saan hore u sheegay, inuu xagga lacagta ka kabi karo oran karo war boqolkii konta ka laga rabo de waxa laga yaabaa 10 kiitan 40 kale Kenya konta kalena barnaamijkan hal naga caawiyo. waxa weeyaan waxa ay sameyn karayaan wuxuu oran karaa qofka xitaa run ahaantii lacagta aan dirayay dadkii u dirayay halka hadii jeer waxa aad moodaa in de loo isticmaalo xagga wixii daruuriga ahaa ama ha noqoto cuntada ama ha noqoto kirada guriga ama ha noqoto waxbarashada ama ha noqoto xagga caafimaadka oo yiraahdo run ahaantii waxaan jeclaan lahaa inaan lacagta aan diray iska daayo aan anigu xitaa bal business aan sameeyo dadkii aan u diri jiray ay ka shaqeeyaan si qofkaas uu noqdo de qof aan lacag ka bixin hadii jeer oo walaalihiisa uga caawinaya hadda ma dadka uu jeclaa isaguna wax ka faa'iideysanaya. marka laakiin fikirka aan rabnay inay la yimaadaan waxa weeye mid aan leenahay walaal eega website-ka waxa ku yaala run ahaantii soo gudbiya waxay la aragtaan macquul inay tahay. anagu waan diga caawinna xagta tahay xaqii qoritaanka ama eegitaanka iyo qeexitaanka sidii wax loo habeyn lahaa. noqda dad runtii waxa ay sameynayaan de ku dhiiran inay sameeyaan lacagta laga rabana suudahana soo buuxinaya. ilaahayna waxaan ka rajeynayaa in ay Soomaalidu ka faa'iideystaan way kan haduu noqdo mid macquul ah qaar badan oo kale ayaa insha Allah la filan doona. arrintan horta waa arrin aad u fiican, waana arrin cusub, waana arrin aan jecel lahay in dadka Soomaaliyeed hadda ka bacdi waxyaabaha noocaas oo kala ah dadka caawinaya oo Soomaalida gacan qabanaya maadaama ay maanta ay waqti ay liitaan ay tahay in la istuso hawsheena jaaliyad ahaan ugu muhiimsan
oo annagu aan qabanaana waxa weeye inaanu dadkeena Soomaalida oo wax isu taraya iyo dadka kale oo ummadna mujtamaceena Soomaalida oo dhan wax taraya inaanu isu keeno marka runtii markii fikradana loo keenayna aad baan ugu farxnay waayo wax toos u taabanaya dadkeenii baan u arkaynay aad baan ugu mahadcelinayaa Ismaaciil iyo Bid Network oo mataqaanaa arrintan noo keenay oo iyagu markaa raba in dadkii ay u gudbiyaan sidii maanta aad ka arkayseen si guud u gudbiyaan shuruudihii loo sheegay qof kastana maanta uu halkaasi uu ka arkay ama ka ogaaday macluumaadka ay u baahan tahay in arrintan la ogaado fursaddan jirta taas horta si fiican ay hirgashay oo dadkii aan tira aan filanayn dad ka badan baa noo yimid taas horta muhiimadda ugu weyn bay leedahay su'aalaha la weydiinayay xiisaha meesha ka yimidna wax lagu farxo bay ahayd marka runtii aad iyo aad baan maaragtay anagu aan u qiimeynaynaa waana aad baan ugu faraxsanahay mashruuca wax soo saarka cunnada iyo ka ganacsigeeda ayaa ah mid ujeeddadiisu tahay mid kor loogu qaadayo wax soo saarka beeraha iyo kalluumaysiga badaha ee dunida taas oo ay qaramada midoobay iyo hay-adaha caalamku si weyn ay isugu hawleen sidii loo casriyeyn lahaa looguna fududayn lahaa guud ahaanba beeraha Soomaalida si loo helo ganacsi xor ah iyo wax soo saar tayo wanaagsan iyo cunnooyin manaafacaad leh ugu dambeyntii mas'uuliyiinta barnaamijkan waday ee Anna Marie Morsel, Laura Smith iyo Ismaaciil Cawl ayaa ugu baaqay Soomaalida qofkii jecel ama haya fikrado uu dalkiisa hooyo kaga abuuro shirkad ganacsi hadday tahay wax soo saar iyo cunnaba isla markaana raba in uu helo taageero maaliyadeed iyo khibradeed in laga caawiyo uu la soo xidhiidho hay-adaha mashruucan u qaabilsan sida ay sheegeen waxaanay dhowaanta dalalka Somaliland iyo Soomaaliya laga hirgelin doonaa mashruuca Somali Agri Food